الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. maanta halkan waxaan doonayaa inaynu ku duubno 10 ka mid ah casharradeennii imtixaanaha ee ku saabsanaa barashada xayawaanaadka. bal maanta waxaan doonayaa inaynu ka hadalno zoonotic disease oo ah iminka cudurradan adduunka aadka ugu faafaya ay ka mid yihiin weeyaan zoonotic disease. haddaynu ka hadalno zoonotic disease marka hore waa xanuuno ku dhaca bini'aadanka iyo xayawaanaadka kaleba. zoonotic disease oo iminka sidaynu ka warhayno waxa weeyaan xanuunada aad iyo aad halista u geliyay nolosha bini'aadanka, xanuunadaas oo kasoo markii hore ka yimi xayawaan markaas dadka usoo gudbo dadku ay qaadeen. sidoo kale xanuunada zoonotic disease la yiraahdo waxa weeyaan xanuunada dadka qaba xanuunka laftigoodu waxay qaadsin karaan, xoolaha way qaadsin karaan. marka zoonotic disease haddaynu soo koobno waxa weeyaan xanuuno dadka iyo waxa weeyaan xayawaanaadka u kala gudba. zoonotic disease waxa weeyaan xanuuno ay kala qaadaan dadka iyo xooluhu, dadka iyo xayawaanaadka kale. marka waxa weeyaan zoonotic disease waxa weeyaan qeexitaankiisu xanuunada dadka iyo xooluhu isqaadsiiyaan ama dadka iyo xoolaha u kala gudba haddaynu si kala u dhigno. markaynu leenahay dadka iyo xooluhu xanuunada isqaadsiiyaan maxaynu u jeednaa? dadka iyo xooluhu waa laba noole oo labadaba ilaahay abuurtay. qaarna waa mayeedhaan oo waxa weeyaan waa xayawaanaadka waxa weeyaan ilaahay abuurtay, qaarna waa dadka oo waxa weeyaan iyagu mudnaan gaara bay leeyihiin oo waxa weeyaan iyagana ilaahay ba abuurtay. marka waxa weeyaan zoonotic disease markaynu ka hadlayno xanuunadani waxa weeyaan dadkuna way qaadsin karaan xayawaanaadka, xayawaanaadkuna dadka way qaadsin karaan. zoonotic disease maanta waxa weeyaan adduunyada aad buu farabaas ugu haya xanuunada zoonotic disease-ka ama xanuunada markoodii hore reserve-koodii ama waxa weeyaan markoodii hore ka soo origin garoobay ama ka yimi animalska ama xayawaanaadka ka yimi ee dadka ku dhacay. waxa weeyaan dadku xanuuna ma u gudbin karaan xayawaanaadka? dadka laftigoodu waa first virus, marka dadkuna xayawaanaadka waxay u gudbin karaan xanuuno oo qaadsin karaan. marka maanta waxaan doonayaa inaynu ka hadalno zoonotic disease inaga oo waxyaalo badan ka hadlay doona oo casharro badan oo taxanaa ka diyaarin doona bal zoonotic disease-ka iyo waxa weeyaan qaabka loo xakameyn karo, qaabka ay u dilaacaan, qaabka looga hortagi karo iyo waxyaalaha waxa weeyaan keenaya in ay xanuunadani u soo gudbaan dadka iyo xoolaha u kala gudbaan ama ay isqaadsiiyaan dadka iyo xooluhu iyo u kala gudba xayawaanaadka. xanuunadan waxa weeyaan zoonotic disease-ka waxa weeyaan xanuunadani aad bay khatar u yihiin marka ay dadka ku dhacaan. waxaa jirta xanuunada zoonotic disease-ka la yiraahdo xanuuno markay xayawaanaadka la nool yihiin ama ay la nool yihiin mayeedhaanka kale ee waxa weeyaan ama waxa weeyaan livestock ama waxa weeyaan dugaaga kale ee aan xanuun iyaga ku haynin, laakiinse markay bini'aadanka u yimaadaan waxaa jirta xanuunada zoonotic disease-ka la yiraahdo xanuuno markay la nool yihiin xayawaanaadka aanay xayawaanaadka aan dhibaato ku haynin ama xayawaanaadku aanay u xanuunsanin, laakiinse markay bini'aadanka ku dhacaan bini'aadanku waxa weeyaan uu u xanuunsado ama u dhinto. waxaa jira qaar xayawaanaadkana dhiba bini'aadankana dhiba, labadaba waxa weeyaan ku leh infection oo ku keena xanuun. marka waxa weeyaan zoonotic disease haddii aynu eegno waxyaalaha waxa weeyaan classification haddaynu ku samayno zoonotic disease waxyaalaha keena waxaa ka mid ah virus baa keeni kara zoonotic disease-ka, parasite baa keeni kara, fungus baa keeni kara, bacteria keeni karta. waxa weeyaan zoonotic disease ma keeno oo qura virus ama waxa weeyaan bacteria khali ma keenta, laakiinse waxa keeni kara different pathogen baa keeni kara. marka classification markaynu samaynayno bal aynu ablaableynayno ama aynu qaybinayno xanuunadan waxyaalaha keena. iminka virus oo kale coronavirus-kan iminka adduunyada ka dilaacay waa zoonotic disease. waa xanuunada markoodii hore waxa weeyaan ay dadka ay xayawaanaadku dadka qaadsiiyeen.
waxa weeyaan xoolaha ku dhici jiray ama animalka kale ku dhici jiray markaynu xoolaha leenahay inagu waxa weeyaan dee dad haddaynu nahay Soomaaliya xoolaha waxay u naqaanaa waxa weeyaan xayawaanaadka aynu dhaqanno ee aynu ka helno manaafacaadka aynu ka helno sida hilibka waxa weeyaan oo kale travelka ama sportska waxa weeyaan xooluhu waxa weeyaan xooluhu way inooga duwan yihiin animalska kale inaga marka waxa weeyaan xanuunadan iminka waxa weeyaan virusiska coronavirus oo kale virus baa keena Ebola oo kale virus baa keena HIV oo kale virus baa keena laakiin si markoodii hore reserve-kood markaan kelimada reserve aan leeyahay waxa weeyaan xanuunadani waxay la deganaayeen waxay kasoo oojino garoobin waxay markoodii hore baaqi ku ahaayeen xayawaanaadka ayay ku dhici jireen markii xayawaanaadkii waxa weeyaan uu dadkii qaatiyay ayaa waxa weeyaan dadkiina dee serious situation uu galay xaalad khatar ah ay geliyeen marka waxa weeyaan virusiska ayaa keena qaar kamid ah zoonotic disease qaar kamid ah keena parasite sida hookwormka oo kale ama waxyaalaha la yiraahdo durian jilaabeedka oo kale waxa keena iyagana parasite baa keena qaar baa jira fungus-ku keena sida histoplasmosiska ama bacteria oo salmonella oo kale ah oo keeno bacteria keento haddaynu u kala qaybno classification-ka haddaynu zoonotic diseaseska agency-ga ama waxa weeyaan pathogen-ka keena haddaynu intaa u kala qaybnay afarta kusoo koobnay afarta way ka badan yihiin laakiin si afarta ugu waaweyn ee muhiimadda aynu siinay haddii afarta yihiin waxa kale oo jirta iyaguna examples inaynu ka bixino zoonotic diseaseska waxa kamid ah anthraxka oo waxa weeyaan xanuunka kudka la yiraahdo ah waxa weeyaan brucellosiska kamid ah oo waxa weeyaan isaguna dadku uu ka qaadi karo animalka ka qaadi karo rabiska kamid ah xanuunkan waxa weeyaan inta badan xoolaha ku dhaca ama waxa ku dhaca dugaaga kalaba ku dhaca waxa weeyaan rabiska leeyahay ama waalida keenaya kamid ah xanuunadan kale ee black ah baa keena oo iyaguna ah xanuunadan maanta adduunka ku dilaacaya ee daacuunka waxa weeyaan aadka u faafaya ee dadka leynaya ama xoolahaba leynaya xoolooyiga dadku way leeyihiin tetanuska waa kamid ah AIDS-ka kamid ah Ebola kamid ah brucella kamid ah examples kooban bay kusoo qaaday coronavirus baa kamid ah ama COVID-19 inaga oo ka diyaarin doona lecture ka diyaarin doono coronavirus-ka bal waxa weeyaan meeshu ka yimi coronavirus COVID-19 maxaa looga jeedaa xilma xanuunkan uu dilaacay xilmo adduunka la ogaaday ma iminka xanuun la ogaaday ba mise waa xanuun intaas oo sano la ogaa xanuunkan COVID-19 waxa weeyaan xanuun iminka maaha waxa weeyaan la ogaaday xanuun hore loo ogaa weeyaan oo coronavirus-kan oo waxa weeyaan marka virology-ga la baranayo waad arkaysaa in xanuunkan uu yahay xanuun imka taariikhda ugu dambeysay ee la ogaaday xanuunkan ama taariikhda ugu horeysay baan leeyahay ee la ogaaday xanuunkan waxay ahayd 1960 ilaa 1970 meelahaasay ahayd marka waxa weeyaan iminka maxaa xanuunkan waxa weeyaan loo leeyahay waa xanuun cusub marka taa waxaan doonayaa inaynu u dhigno lecture gaar ah aynu ka hadalno meeshu ka yimi sida markii ugu horeysay oo xanuunkan u dilaacay xayawaanaadku ku dhici jiray qaadi jiray intaanu dadka usoo gudbin kaasiga waxaan u dhigaynaa lecture gaar ah transmissionka bal aynu ka hadalno zoonotic disease-ka haddaynu niri zoonotic disease-ku waa xanuunada isqaadsiiyaan dadka iyo xoolaha ay isqaadsiiyaan haddaynu niri seebay usoo gudbi karaan dadka seebay ugu soo gudbi karaan xayawaanaadka seebay ugu gudbi karaan waxa weeye iyaduna waa su-aal isweydiinteeda leh xanuunadan waxay u gudbi karaan direct contact in waxa weeyaan aad xayawaanaadkii la samayso direct contact markaan leeyahay waxa weeyaan in aad taabato ama waxa weeyaan aad xayawaanaadkii aad meel aad ku wada hoyataan oo aad taabataan direct contact waa taabasho waxa weeyaan qumaati ah marka waxa weeyaan direct contact waxa weeyaan waxaad salifiisa ama waxa weeyaan dhareerkiisa ayaa neefkii ku taabanaya blood baa ku taabanaya dhiig ka yimi kaadi oo kale ba ku taaban karta oo mucous membraneska ayaa ku taaban kara meelaha mucous membraneska oo kala taaban karta ay qoyan feces-kiisa ama saxaradiisa oo kala waxa weeyaan xanuunka ku soo gudbin karta wuu ku qaniini karaa waxa weeyaan animal xanuunsanaya ama xayawaan xanuunsanaya ku qaniini kara waad qaadi kartaa xanuunkii waxyaalo badan isaalo badan baa waxa weeyaan direct contact markaan leenahay oo waxa weeyaan taabasho ah waxa weeyaan inay istaabataan adiga iyo neefkii qabay xanuunka ama adiga iyo dugaagii qabay xanuunka ayaa kamid ah by infected
objectives baa kamid ah in uu ku mudo waxa weeyaan xayawaankan waxa weeyaan wax uu taabtay marka waxa weeyaan pharmacist baa la dhahaa pharmacistku waxa weeyaan neef oo kale waxa weeyaan xanuun qaba oo kala meel ku dhalay ma dheertiisii iyo dhirtii ay uu mariyay dheecaankiisa haddii ay ku muddo qori kamid ama waxaasoo kale ayaa waxa uu kusoo qaadan karaa ayaa waxay noqon kartaa infected objectives in waxa weeyaan objectives infected garaysan ama xanuunkii qabaa oo kale uu kugu dhaco factor baa qaadi kara factor bonka markaan ka hadlayo waxa weeyaan sida waxa weeyaan shilinta oo kale oo neef qaniintay oo qofkii qaniintay oo kala kamid ah kaneecada oo kala kamid ah waxa weeyaan waxyaalaha kale ee insectska ama cayayaanku qaadaan oo kale ayaa kamid ah factor bonka food bomb baa ku soo gudbin karta xanuunkan waxaad ku qaadi kartaa pasteurization baad waxa weeyaan aanad adiga sameyn hilibkiiska karin baad qaadi kartaa adiga caanayaska karin baad qaadi kartaa adiga oo eggi iyo kunti aan iska karin baad qaadi kartaa waxa weeyaan laftigooda fruitiska waxa weeyaan waa in la iska meedha marka la iibsanayo khudaarta oo way ku qaadsiin karaan iyaga laftigooda aerosol baa kamid ah oo waxa weeyaan hawada ama neefta ayaad ku qaadi kartaa inta badan waxa weeyaan dadka la nool xoolaha ama dadka xoolaha raaca ama dadka xoolaha iibiya ama dadka xoolaha waxa weeyaan qala oo kale waxa weeyaan inta badan aad bay xanuunadan zoonotic disease-ka u qaadaan laftigoodu dadka de waxa weeyaan inta xooyn xoolaha ka maarmeen xoolaha faa'iidooyin badan baynu ku qabnaa waxa weeyaan faa'iidooyinkooda badan haday tahay cadkooda haday tahay caanahooda waxyaalo badan baynu ku qabnaa marka waxa weeyaan waa in aynu markaynu ka hadlayno inaynan dhayalsan dadka waxa weeyaan qaar baa ku oranaya weligay baan ari raaci jiray weligay baan geel raaci jiray xanuun maan qaadin waxa weeyaan ilaahay hadaan ku rido horta qaadimaysa xanuunka laakiinse waxa weeyaan in aad feejignaato oo waxa weeyaan aad ka feejignaato caanaha laftigooda waa in la iska yar qandiciyaa oo la iska kariyaa xanuunadan maanta adduunku ka cabanaya si yar oo fudud ayay ku bilaabmaan maanta halkay marayaan waanu aragnaa marka waxa weeyaan taasi waa transmissionkiisa iyo qaabka uu soo gudbo zoonotic disease-ku weeyaan haddii aynu ka hadalno bal waxa meelaha ugu faraha badan ee zoonotic disease inta badan ay kasoo dilaacaan waxaa kamid ah meelaha animal display area-da meelaha seeladaha oo kale ah ee xoolaha waxa weeyaan lagu soo bandhigo ama waxa meeyaan lagu tartansiiyo waxa weeyaan meelahaas oo kale waa meelaha xanuunadu inta badan dadka oo dadku ay kasoo qaadaan meelaha waxa weeyaan waxa jirta natural free ranches oo kale inagu waxa weeyaan meelaha de waxa weeyaan wadankan waa iska free ranch xoolaheena free ranch oo sii deynaa marka waxa weeyaan xoolaha dhowr qaab baa adduunka u dhaqda xoolaha waxa weeyaan inagu qaabka uu dhaqana waa free ranch inay xoolaha sii deyno ay cuntadooda soo cunaan dabeetana ay soo xareyno laakiin si waxa jirta system badan oo xoolaha loo dhaqdo adduunka waxa jirta housing wax la yiraahdo in xoolaha gebigoodaba la xareeyo oo aan xirada laga sii deyn oo halka lagu keeno calafkooda iyo feedkooda lagu keeno oo waxa weeyaan aan weligood baan dibad arag ama de meel lagu daaqiyaba aanay jirin inagu dhul banu iska haysanay ilaahayna siiyo ballaaran marka waxa weeyaan dadka aan dhulka inta leeg haysan xoolahooda way xareeyaan halkaas ayay ku jirtaa xiradaas ay ugu jiraan halkaas ay waxooda ku siiyaan waxa kale jirta xoolaha loo dhaqan karaa in aad siiso wax la yiraahdo supplementary feed waxa weeyaan intaad xoolihii daaqiiso hodhow toolana xoolaha waxa weeyaan xoolaha waxa weeyaan sida oo kale ilmaha ay waxa weeyaan inaad iyagana waxa weeyaan aad ugu darto waxyaalo dheeraad ah oo kale aad ku darto aad siiso waxa weeyaan adigoo xoolihii soo daajiyay haddana kuwa jilicsan oo kale ama kuwa irmaan oo kale aad wax cunto oo kale aad siiso markay guriga yimaadaan oo kale waxa la dhahaa supplementary with feed free ranchigaas ayay u badanahay inagu inaan xoolaha sii deyno wax kale ayaa zero grazing baa jira oo zero waxa weeyaan iyaduna waxa weeyaan tan ka hadlayay ahayd housingka farmiska laga qaadi karaa meelaha bush area-da oo kale ayaa xanuunadan waxa weeyaan aad ka qaadi kartaa oo la iska ilaalin karaa prevention of the zoonotic disease sideeba waxa weeyaan looga taxadiraya sideeba looga hortagaya waxa marka koobaad waxa la iska ilaalinayaa to afford same shelter with animals in aad xoolo waxa weeyaan meel la harsato sida waxa weeyaan iminka dadkeena sameeyeen reer miyiga oo kale geed kii ay xoolaha harsanayaan ayaa qofkina la harsanaya waxa weeyaan xanuunadaas si fudud buu qaadi karaa oo xoolo uga qaadi karaa haddii aan tarragas tahay haddii brucellosis tahay xanuunada khatarta oo dhan waxa weeyaan waa in la iska ilaaliyo waxa weeyaan ariga haddaad geed geliso waa inaad adna geed kale aad fadhiisataa ama aad harsataa oo aanad isku geed aanad xoolihi aanad harsanin ama xerada oo kale aanad in badan ku dhex jirin oo wax weeyaan markaad soo lisayso oo kale
aad samaysaa markaad xoolaha markiiba listo aad ka baxdaa si waxa weeyaan aanay neeftooda iyo waxa weeyaan aanay xanuun kuu qaadsin adiga laftigaaga haddaad xanuuno qabto dee waxa weeyaan xoolihii waxa weeyaan inaad ku dhex jirto maaha ood xanuun qaadsiiso ilayo waa mayeedhana hadli maayaane clean feed and breeding from flores ayaa iyaguna ka mid waxa weeyaan in xoolaha digada laga guro digada markasta waa in xoolaha laga guraa oo laga kilin gareeya waxa weeyaan xoolihii haddii digadii oo kale ay ku daadato waxa weeyaan ama xanuunkii ama waxa weeyaan shilintii oo kale ama dulinkii oo kale uu ku daato waxa weeyaan si fudud ayaa loo qaadaya transmitted zoonotic disease uu soo gudbi karaa markasta waa in laga taxadiraa waxyaalaha waxa weeyaan digada oo kale ay ka mid tahay xoolaha markiiba laga guraa meelo buuhiyo ahan xoolaha lagu xaraynin waxa weeyaan meel degalahoo kale xoolaha lagu xareeya faa'iidooyin badan buu degalku xoolaha u leeyahay vaccination haddii xanuunada la helayo waxa weeyaan waa in vaccination lagu sameeyaa sida brucellosis oo kale ama anthrax oo kale waxa weeyaan inta badan xoolaha Soomaalida ku dhaca waa in vaccination lagu sameeyaa isolation and quarantine waa in la sameeyaa hadduu neef xanuunsado waxa weeyaan waa in xoolaha laga isolate gareeya ama waxa weeyaan laga karantiinimeeya xoolaha oo neefka meel gaar ah lagu xidhaa si aan xoolaha kale u qaadsiinin isolationka oo kale waxa ku jira haddii aad soo iibsanayso xoolo oo silada aad xoolo ka soo iibsanayso waa inaad marka xoolaha soo iibsato markiiba aanad xoolahaagii caafimaadka qabay xoolihii aanad ku darin laakiinse waa inaad muddo haysaa markaad ogaato in aan wax calaamad ah oo xanuun tilmaamaya aanad neefka aanay ka muuqanin markaasaad xoolahaaga ku daraysaa haddaad soo iibsato xoola xanuunsanaya markiiba xeradii aad geliso waxa weeyaan si fudud ayaa xoolahaagii xanuunka ay u qaadayaan adiga laftigaagu xoolaha waa inaad direct contact la samaynin oo neefka aad aragto inuu xanuunsanayo aad ka fogaataa oo waxa weeyaan intaad meel fog istaagto oo kale halkaa ka fiirisaa oo kale ka eegtaa bal xanuunkan haddaad qiyaasi karto calaamadihiisa aad garan karto laakiinse haddii aan markiiba tiraahdo neefkan wuu xanuunsanaya aad qabsato neefkii waxaa laga yaabaa inuu xanuun khatarna neefkani qabo dabeetana uu saa kugu qaadsiiyo slaughter managementiga oo kale ka mid ah marka slaughtering managementigu waxa weeyaan xoolaha meelaha lagu gowracayo oo kale in la ilaaliyo oo waxa weeyaan haddii neefkan uu xanuunsanayo oo lagu gowraco meel guriga hortiisa ah ama waxa weeyaan xerada dhexdeeda dadka inta badan waxa weeyaan xerada ku dhex gowracaan neefkii waxa weeyaan waa khatar marka waxa weeyaan si fudud waxa weeyaan xoolihii oo dhan baa infected noqonaya xoolihii oo khaliya infected noqon maayaan dadkiiba iyaguna xanuunkii qaadayo oo waxa weeyaan neefkan la qalay ee dhiiggiisa uu ka baxay xanuunka waxa weeyaan uu qabay dadkiiba si fudud qaadaya waxa weeyaan marka xoolaha waxa weeyaan hilibkooda waa in si fiican la iskaga kariyaa oo dab fiican la iskaga kariyo inkastoo aynu inagu haysan waxa aynu temperatureka ku eegno dabku intuu gaarsiisan yahay waxaa jirta temperature haddii la gaarsiiyo waxa weeyaan ay dhimanayaan all pathogenska ku jira hilibka oo dhan ay dhimanayaan marka waxa weeyaan dabka waa in badan loo daayo oo si fiican hilibka la iskaga kariyaa Soomaalidu inta badan dee way ogtihiino waxa weeyaan yacyoodkay jecel yihiin waxa yarayaan beerka oo kale markiiba ka soo qaad isagoo oo waxa weeyaan aan bislaaniba beerka oo kale waxyaalaha ugu khatarta badan buu ka mid yahay ama liver flukiska oo kale laga helo waxa weeyaan waxaan u jeedaa dooryaamadan ku dhaca waxa weeyaan ama wormiskan ku dhaca beerka oo kale laga helaa ka mid ah marka waxa weeyaan taaliftigeeda waa in laga digtoonaadaa carcass management baa ka mid ah waxa weeyaan neefka markuu baktiyo oo kale in si fiican iyadana loo manage gareeyo oo ama neefkii la aaso oo hog dheer loo qodo ama la gubo waxa weeyaan raqdi oo kale la gubo taas waxay keenaysaa in xanuunkii waxa weeyaan laga hortago inuu taanu faafin haddii neef baktiyo oo neefkii aad halkaas kaga jiido aad guriga ka yara fogeyso wuu ku soo gaarayaa waxa weeyaan hodhow toole xanuunkani marka waa inaad taasna si fiican iskaga ilaalisaan food hygiene practice ayadeedana ku jirta in markasta waxa weeyaan la practice gareeyo ama waxa weeyaan la sameeyo si fiican loo ilaaliyo nadaafadda loo ilaaliyo markaad xoolaha lisayso oo kale aad farxalato markaad xoolaha ka soo baxdo oo kale aad soo listo aad waxa weeyaan iyadana farxalato station of the milk inaad caanaha iska karkariso ama iska yara qandaciso waxa weeyaan iyaduna waa muhiim in aad hilibka si fiican iskaga kariso hilibka oo aan si fiican la iskaga karin waxa weeyaan in hilibka si fiican iskaga kariso oo kale weeyaan iyaduna way fiican tahay oo waxa weeyaan haddaan hilibka si fiican aan iskaga karinin dee waxa weeyaan waad ku qaadaysaa xanuunkii in aad ka ilaaliso waxa weeyaan qaniinyada cayayaanka sida shilinta gafanaha kudkudaha waxyaalahaas oo kale in la iska ilaaliyo waxa weeyaan
dadka waxa weeyaan inta badan Soomaalidu waxyaalahaas oo kale serious uma qaataan laakiin se waxa weeyaan waxaan waa serious dhimashay sababi karaan degdeg ah haddii uu kudkuda ku qaniino kudkuda oo kale ku qaniino ama shilin oo kale infected ay ku qaniinto khatar bay keeni kartaa waxa weeyaan markii waxa weeyaan ay samayso paralysis samayso waxa weeyaan nervous systemka ku samayso waxa weeyaan waa khatar intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxay noo soo socda casharo badan oo ku saabsan zoonotic disease waxaynu casharkeena dambe kaga hadli doonaa insha Allah coronaviruska iyo coronavirusku sidoo ku soo dilaacay inaga oo taariikhdiisa ka sheekayn doona waxyaalaha waxa weeyaan sababa coronaviruska inuu dilaaco xilliga la ogaaday iyo waxyaalo badan inaga ka hadli doono Thank you.